mid ka mid ah dhiirigelintii iyo guubaabadii ay la daba taagnayd halgamayaashii naftood hurayaasha ahaa ee habeen iyo maalinba duurka ugu jiray sidii mar kale loo heli lahaa xornimadii hallowday ee hoggaankeedii howlyarida lagu bixiyey laga dhaxlay hoogii iyo halaagii hooyo iyo dhallaanba hilbahooda wadhay hanad iyo halyeyna hogga ku hubsaday waxa ay waqti badan gelinaysay oo ay sida galowga ugu dhiiloon jirta in laga wada qayb qaato halgankii lagu badbaadinayay nolosha dadka intii hadhay waxayna dhalinyarada iyo dadka xoogga ah ku dhiirigelinaysay in la iska xoreeyo kuwii dadka xasuuqayay iyo dhiigii cabyadii dhagarta u saaxiibka ahaa ee dhulka haystay وصدق يوم دقنا دنا هذي لاو توبك كينيا ويل دقيدي مشاخة طول كشان ضل يا دينا دار هذه ستين بحرك لدير كوكا qofka aan ka hadlayaa waa Sahra Ahmed Maxamuud Sahraye qaybteedii qaadanaysa oo loo garan og yahay waqtigan Sahra Halgan dad badan ayaa isweydiiyay halganka ay ka sheekayso halka ay kaga jirtay sidoo kale xogtan yar waxaan holaday markii aan arkay dagaalka hiilka u baahan ee dhashii cadawga ku hayaan Sahra Halgan iyo inta soo hadal qaada hadimadii la soo maray iyo halistii laga yimi sidoo kale waa darsi aan u dhigayno dhalinyarada si ay ugu dhug yeeshaan kuwa xaq dhowrka ka mudan ee abaalka ku leh waxay ka mid ahayd hobolladii tirada yaraa ee halgankii qadhaadha kaga qayb qaadanayay inay ku baraarujiyaan uguna baaqaan in si dhammaystiran loo galo isla markaasina dhulka laga xoreeyo kuwii lala midoobay ee mindiyihii u qarsoonaa ku malgayay maata iyo mudanba waxay hoga tusaaleynayeen kuwii habranaya iyo kuwii hakadku ku jiray heesahooduna waxay ahaayeen shidaalka keliya dadkii magaalooyinka iyo kuwii duurka joogayba dardarta gelinayay dareenkoodana kicinayay iyagoo si gaara ula hadli jiray kuwa baqanaya ama dib isu dhigaya iyagoo u sheegi jiray in dalku xoroobayo balse dhagxumo inta aanay iyaga ku dhicin ay halganka galaan dhanka kale waxa ay u babacdhigayeen fanaaniintii cadowga ee markasta isku dayi jiray inay niyad jabiyaan xaqu dirirka kuna dhiirigelin jiray geeshashkii gardarrada waday inay sii wadaan gumaadka taas beddelkeeda fanaanada Sahra Ahmed Maxamuud waxay ka mid ahayd hobolladii halyeeyada ahaa heesaha lidigoodana dhegaha ugu culayay dhaartana ugu marayay inay dhulkan ka dhicin doonaan dharaarihii qadhaadha oo dhexda lagaga jiray markasta oo dhimashada iyo dhaawaca cadowgu badato oo ay soo baxdo gacan sarraynta SNM hobolladii ay Sahra Halgan ka mid ahayd waxay sii kordhinayeen heesaha halganka ku sii dhiirigelinaya halgamayaashii xaqu dirirka ahaa halgamaa Sahra Ahmed Maxamuud kaliya ma ahayn heesaa hase yeeshee waxa ay ahayd xilli dhigeed qaxayeen kana fogaanayeen goobaha dagaalka mid ku dhiiranaysa inay ka qayb qaadato dhaymadii iyo daaweynta dhaawacyadii dadkii reer Somaliland ee cadowga cagta mariyay keedeeble kaam abakor biyashiinaha balligubadla salaxle iyo laanqayrta intuba waxay ka mid ahaayeen goobihii ay dhaawacyada SNM iyo dadkii rushayntii diyaaradaha ku dhaawacma ay ku dhayi jirtay sidoo kale tiro badan oo ka mid ah dhaawacyaduna ay u dhinteen intii ay gacanta ku haysay marka anna waxa taaleeyay dhaawac badan baa yaalay marka waxaan isiri inaan baan weydiiyon ku yiri waa tan hawshu idinku badan tahay halkeen wax kaga hagaagi kara waxa dadka xataa hadii dhiiga arkaan dawaqaaba ayaan ahaan jiray marka waxaan arkay in la ii baahay wuxuu igu yiri horta sida wax loo dhayo tusay ciidankii koodbuur oo maxay haydayaan marka
saddexaad baa la oran jiraan malaynaya markaasuu wuxuu i tusay gacan buu i tusay wuxuu igu yidhi imika marka gacanteena saa loo dhigo meelna waa seed meelna waa xidid wuxuu igu yidhi markaad raggana xoogooda markaad aragto xididkoodu si fiican buu muuqday wuxuu igu yidhi halkaas ayuunba irbadda afka u saaraysaa markay irbaddu dhiig yeelato waxaad garanaysaa inuu glucose ku jirto qofkan halkaasaad ka gelinaysaa dhaymahana saasaad u dhahaysaa horta halkaasaan ka bilaabo dhaymihii heestii wixii bay joogsato heestii waxay ahayd isha gacal bay ahayd halkaasaan dhaymihii ka bilaabay intii ay ku jirtay hawshaas nafurnimada leh waxay kaloo la soo kulantay dhacdooyin aan la iloobi karin iyo sidii Yuusuf Xajaadan iyo qoladii ma Yuusuf Xajaadan waanu kala lunay marka anagoo geedeeb la joognaa ayaa waxay igu yidhaahdeen adeer orod baytari noo soo qaad marka baytarigii ayaa baytarigu soo ay siir buu leeyahay baytarigii anoo sida ayaa ay sii dhiigu daadatay waxaan haystaa dirac iyo gogarad kaliya iyo shalmad iyo masar waa intii aan ku qaxay dabadeedna way iga wada daldalooshameen dabadeedna dirac gogaradii baan xaggan u jeediyey halkii waxaan ku xaggan iyo xaggan way badbaadsay halkii dalooshay baan ku badbaadiyay marka inama tagayaan ku orniyo weydinka hargeysa tagayay dirac iyo gogarad haddaad heshaan ii soo qaado inamadii waxay ii keeneen macawisiyo iyo shaar gacmo dheer ah oo yara funaanada waxay soo heleen marka macawisti waxa bay noqotay waxii asturano fiican macawisti marka way kala jeexan tahay way qaraweyne magac bay lahayd lama sheegi karo waan kala wareejiyo dabadna waan isku xidhay haaf bay yahay macawisti baan ku tagay kaama bokor saanu joogan dhaawaca u dheeyay daawicii alxamdulillah ilaahay mudaan joognay dhowr bilooda ilaahay uu nagu guuleeyay ugu dambeyn markii laga guuleystay cadowga ee gacanta lagu dhigay dhulkii gumaysi nacabku haystay lagana doogay gumaadkii isla markaasina lagu dhawaaqay 18 May 1991 Jamhuuriyadda Soomaaliland Saara Halgan waxa ay ahayd fanaanadii ka heestay madashii lagaga dhawaaqay Soomaaliland iyadoo xasuusisay dadka in reer Soomaaliland lahaayeen fikirka midowga balse la duudsiyay curashadii calanka nabadda barwaaqada iyo horumarka u horseeday dadka reer Soomaaliland kadib markii dhismaha dawladnimada la waday may joojin heesihii ka sheekaynayay wixii la soo maray iyo sidii looga guuleystay cadowgii jabkii iyo jalaadkii la baday waxyar kadib jabintii cadowga markii ay isku soo jeesteen ciidamadii jamhadii hubaysnayd isla markaasina ay deegaano u kala baxeen Sahra waxa ay guud ahaanba isaga dhooftay dalkan waan ka dhoofay waxaan u dhoofay Yurub waxaana igu kalifay inaan dhoofo anigoo dalaan u soo halgamay haysta markii umadaydii dhinac ka wada jeeday isku soo wada jeedsatay niyad shabigu dhacay baan uga dhoofay halkan Saara Axmed Maxamed kadib markii ay gaadhay qaaradda Yurub waxay halkaasi ka sii waday hawlaheedii qaranimo waxay warbaahinta caalamka gaadhsiisay oo samaysay documentary films ka waramaya Soomaaliland cadowgii ay la midowday dhibtii ay gaadhsiiyeen barnaamijyadaas ayaa ku baxay luuqado badan oo ay ka mid yihiin Ingiriisi, Faransiis, Chinese iyo Japanese dhanka fanka iyada oo dalkeeda uga faa'iideynaysa hibada codkeeda iyo heesaheeda waxa uu suurta gashay inay ka heesto masraxyo badan oo caalami ah waxaana xusid mudan iyadoo calankeeda heesata inay codkeeda ku heesaysay inta badanna waxa ay baraysay dadka cadaanka ah ee ay u heesaysa Soomaaliland iyo qaar ka mid ah heesaha wadaniyada iyo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka waramaya
dalalka ay ka heestay oo ay ka mid yihiin France, Japan iyo China. sidoo kale waxaa ka mid ah Jamhuuriyadda Taiwan oo waqtigan saaxiib dhow la ah Somaliland. hore sanadkii 2016 ayay saaraalgan booqasho ay ku tagtay waxa ay ku soo bartay calankeeda iyo heesaha wadaniga ah dadka reer Taiwan. intii ay qurbaha deganeed waxa ay ahayd qareen iyo daljirays diray oo dunida iyo dalalka ay tagto gaarsiinaysay magaca xaaladii la soo maray iyo fariinta dadka reer Somaliland. balse markii ay dalka ku soo noqotay ee ay dib u soo degtay waxa ay sii waday heesaha wadaniyada ah iyo wacyigelinta qaranimada. wixii dib la soo mariyo kamayna wixii horo وتامان بير بشير لماذا مالو الغدا وتامان بير بشير لماذا مالو الغدا. dhanka baraha bulshada waxay caan kaga noqotay difaacista qaranimada iyo xasuusinta dhalinyarada xaaladihii adkaa ee loo soo maray qaranka qurxoon ee aynu maanta harsanayno. waata keentay in cadowgu ilgaara ku eegaan isla markaasina bartilmaameedsadaan baraha ay bulshada kula xidhiidho. wadaniyada iyo qaranimo jacaylkuna waa sababta ay markasta ugu duulaanka yihiin kuwa diidan qaranimada iyo jiritaanka Somaliland. ha ii joogeen nacabka dibadda isaga yoolkiisu waa inuu leexiyo halganka weli sahri ugu jirto in dalkeenu heer sare gaadho aqoonsina helo. hase yeeshee waxaa jira dad reer Somaliland u dhashay oo aan halacsaday marar badan iyagoo u tirinaya dhinac gaar ah ku eedeynaya inay dhan u xaqliso kuwaas oo barnaamijku berayay sahradii shalay iyo maanta iyo guud ahaanba reer Somaliland oo aan leeyahay Saare Axmed Maxamuud Saare Halgan oo inoo soo martay waxaasoo hawl ah maxay inaga mudan tahay.